degmada Cadalle waxay ka mid tahay degmooyinka gobolka Shabeellada Dhexe ee ka soo kabanaya dagaaladii sukeeye ee ka dhacay gobolka, gaar ahaan dagaalkii lala galay ururka Al-Shabaab. qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa in muddo ay ku taamayay in mar uun la heli doono barnaamij lagu horumarinayo adeegyada ay u baahan yihiin bulshada. haddaba munaasabad lagu dhagax dhigayay laba mashruuc oo muhiim u ah bulshada ku dhaqan degmada Cadalle ayaa lagu qabtay xarunta degmadaasi, waxaana ka soo qayb galay madaxda maamulka Hirshabelle oo isugu jira wasiiro, xildhibaano iyo madax ka socotay gobolka Shabeellada Dhexe. mashaariicdan ayaa lagu dhisi doonaa dugsi hoose dhexe sare oo ay wax ka baran doonaan carruurta degmadaasi oo qayb ka ah dadaalka lagu doonayo in lagu horumariyo degmada. sidoo kale mashaariicdan ayaa waxaa lagu dhisi doonaa guri ay yeeshaan hooyooyinka degmada, maadaama haweenka ay lafdhabar u yihiin bulshada, waana sababta keentay in dhismahan laga hirgeliyo degmada Cadalle. gudoomiyaha ururka dhalinyarada Fartuun Aadan Xeebo ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay mashaariicdan laga hirgelinayo degmada. maanta waxaa sharaf weyn ii ah inaan ka soo qayb galo dhagax dhigga xarunta hooyooyinka iyo dhagax dhigga iskuulka waxbarashada. waxaan leeyahay horta Cadalle waxaan idin leeyahay hambalyo waxaad hesheen hooyooyinka, waxaad hesheen xarun hooyooyin. waxaa idin rajeynayaa xarun hooyooyin waa hesheen, xarun dhalinyaro inaad heshaan, degmooyinka kalena ay helaan. waan idin hambaleynayaa. maxay tolo maanta farxada iyo taanigo Cadalle joogo oo barnaamijkan ka soo qayb galay. waadna ku mahadsantihiin, annagana waa idinku faraxsannahay insha Allah. mar kale inaan ku soo laabano dhagax dhigga dhalinyarada iyo howlo kalena waa rajeynayaa insha Allah. gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellada Dhexe ahna kusimaha gudoomiyaha ayaa soo dhaweeyay in bulshada ku dhaqan degmada ay helaan laba xarumood oo muhiim u ah hooyooyinka, dhalinyarada iyo carruurta degmadaasi. waxay nasiib u yeesheen inay maanta helaan adduunka waxaa ugu dara haweenka, meeshay haweenka ku shir lahayn ambuulka haweenka haddii la sameeyana waxaa ku xigi doona waxyaaba badan aad iyo aad u fiican. waxaan rabaa horta inaan maanta ugu mahad celiyo wuxuuna ugu soo deeqay inay haweenkayna hela Cadalle nagu dhisan. waxaan leeyahay aad iyo aad aa u mahadsantihiin. Cadalle degmada Cadalle degmadii ugu badneed oo mashruucyada ugu badneed hesho waayey, waxayna ku heshay ismaqalka iyo wanaagga iyo nabadgelyada haysatee. waxaan rabaa inaan kusii dadaashay nabadgelyadiina iyo ismaqalkiina. xildhibaan Cali Siciid Sheekh Maxamed oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle ayaa qaba aragtida ah in la horumariyo degmada Cadalle maadaama dadka ku nool degmadaasi ay ku tilmaaman yihiin nabad jacayl. waa degmo nabadeed, waa degmo colaadda nacab, laakiin nabadda soo dhaweyso, ilbaxnimada soo dhaweyso, waxbarashada aqoonta soo dhaweyso. saacada toojir runtii waxaa maanta farxad noo ah daafurka aan jecelnahay inaad mataqaana noo daafurto labadaas xarumood iyo xarumo kale oo insha allahu tacaala mar dhow mataqaanaa ka bilaaban doono. waa daafurka u horreeyey, laakiin intaas kaliya aama doonto ilaa dhowr iyo 30 xarumood oo degmada Cadalle loo daafuraya dhici doonto insha allah. bulshada ku dhaqan degmada Cadalle ayaa aad ugu riyaaqay mashaariicdan laga hirgelinayo degmada ay ku nool yihiin, maadaama ay heleen xarun waxbarasho iyo goobo u gaar ah haweenka. horta inta noo keentay ambana soo xusuusatay amba madaxdayna horta Allah cafi oo baahidayna ogaatay una sheeganay. horta ilaahay Allah la qabto khayrna Allah siiyo. sida u dhaqsado badanan wax kasta rabay inuu sameeysan jecelnahay wili noo dhiman tahay si fiican ugu dhamaystirto. mashruucan wax weyn ayuu ii qabtay, wax weyn ayuu naga tari doonaa. hamigeyna waa siyaaday, waa laba jibaaray 1986 sanadka 19 waxaan u arkaa sanad barwaaqo oo hiigsi leh oo farxad ii muujiyey, maadaama dugsigeyga la soo nooleeyay, dib loo soo nooleeyay, nolol cusub ayaan dareemaya. waxay arrintan ay ka dambeysay wadatashi bulshada lala yeeshay kol hore. wadatashigaas ayaa dhismaha iskuulka iyo guriga hooyooyinka waxa ay ka mid ahaayeen waxyaabihii ay dadka deegaanka mudnaanta in la siiyo ay dalbadeen. dowlad goboleedka Hirshabelle oo kaashanaysa deeq-bixiyaasha ayaa ka soo jawaabay dalabkaasi. waa kan gudoomiyaha degmada Cadalle oo faahfaahinaya baahida ay degmada u qabtay inay hesho mashaariicdan. Cadalle Bashaar waxaa ku guuleysateen barnaamijyo fara badan kuwa ugu horeeyay hadda inaad aragteen rajaynayna insha Allah.
madaxdeena idin cadaadayn doonta si faahfaahsan bal haddii la eedmo waxaanse idiin sii hordhacayaa bal waa guulaysateen ku haystaan haddii la eedmo xilkaan waddada in idiin timaadeen wax idiin keento wax fiican waaye annaga ma kasban laakiin ilaah naga siiye hadda inaan kuwa kala kasbanno ku dadaalno insha allah wasiir ku-xigeenka howlaha guud iyo guryeynta ee dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa tilmaamay in degmada Cadalle ay tahay degmo ku xeeleel xadaaradda ama ilbaxnimada sidaa daraadeedna ay muhiim u tahay mashaariicdan laga dhagax dhigay degmada Cadalle. Cadalle ma nabadba waa soo jirnaadee ma nabadba jannadii adduunka ma nabadba jawaaradii adduunka ma nabadba Soomaalidu waxay dhahaan wadajireen laba gacmood wax ku gooyaan marka horta midnimadana sii muujiya wax allaala wixii meelo dhisana waxa uu ka saabtaan in wixii meelo dhisana aad gacanta ku soo haysataan ood ka soo qaadaan wixii wax adinka aad leedahiin aad ka soo qaadaan annagana ka wasaarad ahaan howlaha guud iyo guryeynta dowlad goboleedka Hirshabelle waxaan xoogga saari doonaa billahi kariim mashaariicda miyaarto 32 ah in runtii qaabkay ku fuli lahaayeen runtii aan ka shaqayn doonaa annagana si kastaba ha ahaatee mashruucan ayaa waxa uu wax badan ka tari doonaa horumarka degmada Cadalle ee gobolka Shabeellada Dhexe.